السلام عليكم صاحبيال kusoo dhawaada muuqaal kale sidaan wada ognahay dhowrka bilood ugu dambeysay waxaa aad u soo badatay in la jabsado YouTube-yadii ugu subscribe badnaa Soomaalida iyo sidoo kale Facebook pages-kii ugu caansanaa oo ay kamid yihiin hay'adihii tiknoolajiyada iyo isgaarsiinta inoo hayay page-kooda waxyaabahaasi oo isleeyahay waxa sababay wacyiga Soomaalida oo aad u hooseeya iyo tiknoolajiyada oo update ku socota oo sidii shalay la isku jabsan jiray si ka duwan maanta la isku jabsado muuqaalkan waxa kugula wadaagi doonaa mid kamid ah weerarada ugu caansan ee Sabraaniga ahna kan ay ugu isticmaalka badan yihiin hackersku marka ay rabaan in ay jabsadaan social media accounts-ka iyo informationada kale online-ka balse ugu horreyn waxa ka codsanayaa inaad muuqaalka like saarto muuqaalka inaad like saarto like muuqaalka waxa ka caawinaysaa inuu YouTube-ka sii faafiyo dad badan uu sii gaarsiiyo marka haddii aad like garaysan aad ku maasan tahay wali haddii aadan like garayn waxa ka codsanayaa inaad muuqaalka like saarto Okay, phishing attack waa fariin been abuur ah isla markaana hackersku ay rabaan inay kugu jabsadaan oo ay ku xadaan information-kaaga online-ka sida bank account iyo card information-kaaga iyo social media accounts-kaaga fariintan oo ay u soo keysiyaan badanaa hackersku marka waxa ay rabaan inay jabsadaan haddii aan leeyahay tusaale ahaan marka ay rabaan in ay ka jabsadaan lacagaha inay ka xadaan waxay isku soo keysiin doonaan ama isaga ka soo dhigi doonaan dad raba in online-ka wax kaaga iibiyaan marka ay rabaan in social media accounts-kaada ay jabsadaan waxay ku soo diri doonaan fariin u eg ama fariin ay ka dhigayaan ama ay u keysiinayaan inay ku soo direen shirkadda MK ay rabaan inay ka jabsadaan tusaale ahaan Facebook oo kale fariin ay ku soo dirtay badanaa email-lada ay adeegsadaan hackersku balse sidoo kale waxay adeegsan karaan chat applications-ka sida WhatsApp-ka iyo Messenger fariintaasi marka ay ku soo gaadho hackersku waxay sameyn doonaan laba hab ay ku jabsan doonaan habka koowaad oo ah in computer-kaaga u soo dhaadhacaan oo ay adoon fahansan in computer-kaaga kula maamulaan iyo habka labaad oo ah in ay soo sameystaan pages ama website-yo fake ah oo been abuur ah oo markaana loo ekeysiiyay tusaale ahaan Facebook been abuur ah Twitter Netflix iyo website-yada kale la midka ah habka labaad waa habka ugu adeegsiga badan yihiin marka ay rabaan social media ay ka xadaan balse haddaan ku horeeyo habka koowaad oo ah in computer-kaaga u soo dhaadhacaan fariinta ay ku soo dirayaan mar walba marka hackersku la socota link ayaa la socda linkigaasi marka aad kala garayso software malicious ama waxa loo yaqaan malware-ka ee computer-kaaga ku soo daadigi doona malware-rada waxa weeyaan habka uu shaqeeyaan muuqaalo aan ku sharxay baa jira sida virus-ka trojan-ka iyo kan ugu khatarsan ransomware-ka la yiraahdo oo hackersku haddii computer-kaaga soo dhexgeliyaan ay awoodi doonaan inay ka xanibaan computer-kaaga inaad isticmaasho faalashaada ay ka xadi karaan password-da aad ku save garaysatay browser-kaaga soo kale ay ka xadi karaan habkan marka waa habka ugu khatarsan xataa shirkadaha waaweyn badanaa lagu dayo ama maxay lagu jabsado malware-ka marka muuqaal aan ku sharxay baa jira linkigiisa description-ka in ku soo dhigay habka labaad oo aan isleeyahay waa habka ugu fudud ee hackersku ay sameyn karaan isla markaana lagu xadi karo dadka maxay wacyigooda aad ka hooseeyo wax weeyaan waxay soo sameysan doonaan hackersku website-yo fake ah sida tusaale ahaan Facebook fake ah ama Twitter ama Netflix ay soo sameysan doonaan si ay u sameystaan marka waqti badan kuma bixiyaan oo waxay isticmaalaan tool kamid ah toolasha hackersku ay isticmaalaan oo loo yaqaan plug eye marka waxa ku diyaarsan ilaa dhowr iyo 20 website oo ay kamid yihiin website-yada imkaan soo tiriyay daqiiqado yar oo kooban ayaan ku sameysan karaan website-kaasi fake kadibna website-kaasi linkigiisa waxay ku soo raacin doonaan fariintan phishing attack loo yaqaano ay ku soo raacin doonaan linkigaasi markaad kala garayso wuxuu ku geyn doonaa page u eg Facebook tusaale marka Facebook inay ka jabsadaan ay rabaan ka Facebook ay ku soo diri doonaan qofka markaas wacyigiisa aad ka hooseeyo wax laga yaabaa in uu geliyo macluumaadkiisii uu ku login gareyn jiray sida tusaale username-kiisa iyo password-kiisa oo kale inuu geliyo markuu sidaa button-ka login-ta uu taabto qofku waxa hackersku heli doonaan password-kiisa iyo username-kiisa hackersku si fudud within second ay ku helayaan qofkana marka ma dareemi doono oo si toos ah marka login-ta uu taabto waxa laga yaabaa marka hore inuu page-ka error-ka ee 404 ka loo yaqaan uu soo yarabaxo marba hadduu refresh isku celiyo waxa laga yaabaa in website-kaasi si toos ah u geeyo halkii marka hore uu socday ama Facebook oo kale si toos ah loogu redirect gareeyo marka qofka wacyigiisa aad u hooseeyo waxyaabahaas oo si fudud ayaa loogu qiyaami karaa Okay, qodobka marka aan rabo inaan kula wadaago waxa weeyaan dad badan oo arkay aaminsan marka ay maqlaan in Facebook la jabsaday ama Twitter la jabsaday ama YouTube la jabsaday mooda in hackersku maxay u dhaceen shirkadahaasi waaweyn shirkadahaasi ma awoodaan in hackersku password-da ay ka soo xadaan laakiin mar walba waxa ay target ka dhigtaan ama ay qiyaamay ku sameeyaan qofka isticmaalaha ah ee leh accounts-kaasi Okay, su'aasha isweydiinta mudan marka waxa weeyaan sideen ugu badbaadi karaa weeraradaas waxaad ugu badbaadi kartaa kow haddii aad tahay qof Google-ka badanaa wax ka raadiyo blogyada akhriya ama online wax ka barta badanaa website-yada qaar wax laga yaabaa inay ku yiraahdaan marka aad access garanayso ama isticmaalayso inay ku yiraahdaan is-register garee ama login samee marka website-kan hadaad ku kalsooneen information-kaada ha siinin isla markaana email-kaaga ha siinin email-ka wax ugu muhiimsan waxa laga yaabaa dhowr bilood kadib xataa sanad kadib inay u isticmaalaan phishing attack ama fariimo ama linkyo malwares xambaarsan ay kugu soo diraan marka website aad ku kalsooneen wariga allaha ciwaanha ka samaysan ana register gareen
qodobka labaad software aadan garanaynin computerkaaga ama application aadan garanaynin mobilkaada ha ku install gareyn ama ha ku shubin applicationadaas waxa laga yaabaa in ay yihiin malicious software ama malware inay xambaarsan yihiin oo ay mustaqbalkan kugu keenaan dhibaato aad u weyn qodobka xiga mar walba passwordada qodobka xiga oo ah passwordada horta marka koowaad ah isticmaalin hal password ha isticmaalin dhowr account oo tusaale ahaan hadii mid kamid ah accountadaasi laga jabsado kuwa kalena way fududaanaysaa si lagaga xado sidoo kale password isku egna ha isticmaalin account kala duwan hadii mid kamid ah accountadaasi la jabsado kuwa kalena wax laga yaabaa in lagu nasiibiyo sidaas loola wareego ama lagagala wareego sidoo kale weliga allaha passwordkaaga ha ku save gareynin browserka dad badan waxay jira tusaale ahaan ciwaanadooda ka login gareeya device-yo iyaga aan lahayn tusaale ahaan device-daasi marka aad log garanayso oo aad ku cusub tahay browserka waxa laga yaabaa inuu ku weydiiyo passwordkaada save gareyso dadka marka khaladka ugu weyn galaan waxa weeyaan inay iyagoo ka login gareynayo device-yo mobile iyo laptopyo iyaga aan lahayn in browserkaasi ay ku save gareeyaan passwordadooda xataa haddii qofka log out yiraahdo wala la isticmaali karaa oo passwordka wuxuu ku save gareysan yahay browserka qodobka ugu dambeeya mar walba waxa wanaagsan inaad isticmaasho antivirus sida awoodda badan sida Kaspersky oo kale tusaale ahaan waxa ay xataa la dagaalami karaan noocyada malware-ka kala duwan hadii virus aan la trojanka ransomware-ka iyo kuwa kale kala duwan marka mar walba waxa wanaagsan inaad isticmaasho antivirus maanta intaas ayaan jeclaystay saaxiibayaal in aan idinla wadaago muuqaalka daawashadiisa halkan ku soo gaadhay waxaan ka codsanayaa inaad muuqaalka like aad saarto sidoo kale weli haddaad nagu soo biirin waxaan ka codsanayaa inaad subscribe dhahdo nagu soo biirto muuqaalka haddii aad waddo inaad sii share garayso wixii fikir iyo oraahna aad commentiga igula wadaagto waad ku mahadsan tahay daawashada muuqaalka xiga intaan ku kulmayno sida iyo nabadgelyo